بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي عبد القادر الشافي عشر كان سدحاد waxaan ku qaadanaynaa sidii aan u abuur lahayn company file si aan u abuur lahayn company file si aan u abuurno markii oo si aan u soo kaco application-ku halka korka waxa imanaya company-ga aad ku shaqeynayso ayaa imanaya hadda practice baa ku qoran laakiin company cusub ayaan abuuraynaa kaas ayaan casharada ku sameeynaa step by step ama talaabo ka soo qaadno kaas ayaan ku sameeynaa insha Allah waxa la isoo hoosaasinayeen insha Allah ma jiro wixii su'aalahana waxa laga soo xiriiraya lambarada hoos ku qoran iyo contact-ka kaas ayaa laga soo xiriiraya company si aan u abuurno waxaan imanayaa file ayaan imanayaa file markii aan imaado then new company ayaan doonanayaa new company qaanadii cusbayd ayuu furayaa tii horena way naga xidhayaa then waxaa soo baxaya wuxuu leeyahay let us get your business set up quickly haddii aad si degdeg ah u abuurayso express start yaasa ayaa taabanaysaa haddii aad si faahfaahsan u abuurayso gmail-ka location-ka detail start yaasa ayaa taabanaysaa inagu si degdeg ah ayaan u abuuraynaa maadaama basic iska qaadanayno casharo kalena ay jiro tutorial ahoo advanced ah si degdeg ah u abuur ayaan leenahay then waxaa soo baxaya wuxuu leeyahay meel kasta oo xidigta restricted ay ka horeyso waa mandatory ama waa field required loo baahan yahay lama dhaafi karo sida business name industry-ga iyo business type-kaas waa field required waan fiirinayna marka ugu dambeeyso ayaan fiirinayna insha Allah company-geena magaciisa ayaan ku qorayaa waxaan ka soo qaadayaa magaciisa in la dhaho national company then type-ka muxuu noqonayaa type-ka haddii aad garanaysana waad ku qoraysaa haddii kale waxaan help me use that ayaa dooranaysaa help me ayaa dooranaysaa waxaan ka soo qaadanaynaa inuu yahay wholesaler oo kale ayaan ka soo qaadayaa inuu yahay ama wholesaler-kaas waan ka bedelay waxaan dhahayaa waa caafimaad oo kale waxa weeyaan medical ayuu kale ayaan soo bixinayaa ama logic whole kaas ayaan iska dooranayaa type-kana waxaan ka dhiganayaa partnership-kaas ayaan ka dhigaynaa halkan hadduu jiro waxa weeyaan employee identification number waa lambarka canshuurta laga qaado kale address-ka ayaan halkan ku qoraynaa address-ka waxaan leeyahay main town magaaladan halkan ayaan ku qoraynaa waxaan waad buuxin kartaa state-ka 12 state-ka Mareykanka ayaa halkan ku jira hadii ku jirina dib ayaan inoo kaga soo daraynaa oo others-ka ayaan dooranayna lambarka ayaan ku qoraynaa 251 ayaan leeyahay country-gana xaqana hadii ku jirin others-kaas ayaan noqonaynaa lambarka ayaan halkan ku qorayaa waa maadaama furi xaqana ku soo qoray zip-ka furaha halkan ayaan ka bilaabayaa wixii ka soo haray then maadaama nidin lambarradan xidigta ay ka horeyso waa field required waa qasab aan fiirina bal haddii aan company name-ka haddii aan ka tiro oo haddii aan tan select dhaho select baan dhahayaa then control x ayaan dhahayaa control x markaan dhaho halkan waxay noqonayaa create company uu leeyahay inactive ayay noqonaysaa oo ma sii socon karo haddii double click aan dhaho ama click haddaan dhaho ma shaqeynayso control z ayaan dhahayaa control z markaan dhaho halkan way shaqeynaysaa oo waxay noqonaysaa active ay noqonaysaa control z baan dhahay control z markaan dhaho hada active ay noqotay kolka fieldeedan aad buuxinaysa information-kan waxa weeyaan waa muhiim marka aad foojar daabacayso ama estimate iyo waxa sameynayso company-ga information-kiisan loogada iyo wax kasta iyo waxa invoice ku daabacmaya xagan ayuu noqonayaa sida company name-ka industry-ga wuxuu yahay address-ka magaalada u yaalo zip-ka furaha wixii kastaba halkan ayuu ku daamacayaa marka inta aad soo buuxiso waxaad leedahay create company maadaama active ay tahay create company-gaas ayaan click lahaa markaan click dhaho hadda company-geena ayaa inoo abuurmaya company-geena magaciisa waxa weeyaan waa national company weeyaan markuu inoo abuurmo waxaan ku daraynaa sidii company-ga information-kiisa looga bedeli lahaa sida magaca haddii la bedelayo address-ka haddii la bedelayo numberka sida zip-ka ama numberkii wixii la mid ah hadda company-geeni wuu soo kacayaa company-geeni markuu saa soo kaco wuxuu leeyahay desktop iyo waxyaalahan ku daray ku leeyahay then waxaan leeyahay start working si degdeg ah shaqada ku bilow haddii khadka iyo haddii wax ku weydiiyo ama connection ku weydiiyana qaanadan waa iska xidhisaa tan weeyaan oo ku leeyahay connection iyo wax ma jiro try again kana waa iska xidhinaa markaan iska xidho
كمبانيجينا مجلسه كركن أيو صباح يعني وناشنال كمباني ويان ناشنال كامبت ها كقرن كمباني لكن ويان مجلسه هذه أعرف من مجال إنها ضم يستره وناشنال كمباني إنها هلك صباح ذا يعني بهان لهاي وحن لهاي ما كمباني جالس أنا مانيا ما كمباني مركان إمادة وحصاب حياة information كأنجل جلنا وكلا هلكن أيو صباح حياة هي ناشنال كمباني هلكن قالنك exercise كأكو قرنتها إيديتا تاس أيام تابعنا يا إيديتا مركان تابته هلكن كمباني جدا ميسريا كمباني waxaan kaloo bedelayaa legalkana asagana company-ga markastood bedel contact information legalkana asagana waa inaad bedesho waa muhiim halkana country-ga other ayaan ka dhigaynaa halkan other maadaama wadankeenu halkan isku jirin markaan okay dhaho markaan dhaho xagaas company waa soo galay national company soo galay company saas ayaa loo abuuraa عشرة دابا كسي ودي دونا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك